بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا سهنك قصوينك. nin oday ah ayaa u tanashla tagay webi u dhawaa si uu u soo daawado waxaana raacay nin ay saaxiibo ahaayeen. odaygii waxa uu fadhiistay webiga dhinaciisa waxaanu daawanayay biyaha qulqulaya quruxdooda waxaanu sanka la raacayay saxan-saxada iyo udgoonka ka soo baxaya biyaha xareedda ah ee soconaya iyo dhirta ku hareeraysan ee uduga iyo ubaxa badan. waxa uu si kedis ah u arkay dibqalooc biyuhu sitaan waxa uuna doonay inuu badbaadiyo dibqalooca laakiin maxaa dhacay? odaygii gacanta ayuu u fidiyey dibqaloocii laakiin dibqaloocii ayaa qaniinay wuxuu la soo noqday gacantiisii isaga oo qaylinaya oo dareemaya xanuun badan. haddana mar labaad ayuu u fidiyey gacantiisii kale balse gacantii kale ayuu ka qaniinay. odaygii ayaa la soo noqday gacantii kale isaga oo qaylinaya oo gacantu aad u xanuunayso. haddana kama uusan quusane waxa uu ku dadaalay inuu soo badbaadiyo dibqaloocii waa uuna ku guulaystay. ninkii la socday ayaa weydiiyey, oday, dibqaloocan aad isku mashquulisay ee ku dhaawacay dhowrka goor maxaa kugu kalifay? waaba cadow ku cunayee in aad noloshiisa badbaadiso mar labaad iyo mar saddexaadba. odaygii xigmadda badnaa wuxuu yidhi inta uu garabka saaxiibkii gujiyey, saaxiib, dhaqanka dibqaloocu waa inuu wax qaniino, anigana dhaqankaygu waa inaan dabacsanaado, naxariisto oon dulqaato. marka ma ogolaanayo in dulqaadka, naxariista iyo dabacsanaanta ay ka adkaato qaniiyada iyo cadhada. maxaadse adigu u rabtaa in aan ku raaco dabeecadiisa cadhada ah oo aan bedelo dabeecadayda? xigmadda qisada ayaa ah in lagula dhaqmin dadka dhaqanka xun dhaqankooda oo kale, in wixii xumaan ah ee cid kale kuu geysato lagaga jawaabo wanaag, in dulqaadku uu yahay kan badbaadiya dadka kale ee kula dagaalamaya, in ciddii ku qaniinta gacantaada aad ku siiso cuntada. ugu dambayntiina odaygani xigmadda badan waxa uu ina baray cashir la yidhaahdo, ciddii ku xumaysa wanaaji, ciddii sun ku siisana subag waraabi. haddaba dhegaysta isweydii, dulqaadkaagu ma yahay mid aad cafido ciddii ku xumaysa mise waxaad jeceshahay mar kasta in aad aagoosato? bal aan isku dayno dhammaanteena in dabeecaddeena wanaagsan aan kula dhaqanno ciddii ina xumayso iyo ciddii qodax noo daadiso aad adigu u fidiso gogol. waad ku mahadsantihiin la socodka qisadan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.